أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه. galab wanaagsan sidii ballanta ahayd waxaa maanta noo bilaaban doonta haddii ilaahay awoodi la ogolaado barnaamijkeenii ku saabsanaa Somali Foreign Policy Community of Practice, laakiin intaan waxba kala gelin bal aayaad quraan aan ku furanno biidni illah. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. الله عليه سبحانه حبيبك صدح إلى باتن سنة منهج لسود جين دون صلوات الله رب والسلام عليه سوى الدون كودن لقى الشيء أنبيادك يقدم بي لغسو ختمينا رسالة يقدم بيسين لغسو دجنا إلهي وحكو شرفي oo aniga iyo adinka dadka nalamidka lagu sharfay waa bahda waxbarashada in shantii ugu horeysay aayadood ee Ilaahay Quraankiisa ku bilaabay subhanahu wa ta'ala suratul alaq. afar farimood ku jira in wax la akhriyo oo la qoro wixii aan la aqoonina la baaro cilmi baaris la aado. Allah wuxuu leeyahay iqra bismi rabbika alladhi khalaq marka loo ku celinaya khalaqa al-insana min alaq. wuxuu leeyahay iqra wa rabbuka al-akram. آيات أفراد الذي علم بالقلم أو إشارة إن واحد نوت لقاته علم الإنسان ما لم يعلم. He who teaches mankind what they know not. ما شاء الله تبارك الله. أنا وكقلن دارنا هنا ما أنت حسد إنه حكوا بلعبنا ساعة حسد دي وهريسو أيد international relations، لكن هرت كورس كان بحكوا سابسين. كورس كان معها كورس قابيسن أو bachelor إيه master إيه postgraduate diploma إيه certificate إيه diploma إيه أو non degree إيه PhD إيه. haddana university education level waaye mainly executive education ku waxa loo yaqaan oo ah in macalinka uu bixiyo guide good tusmo iyo hagid good oo maadada ubucdeeda intuu bixiyo uu ku baaqo in markaas la fariisto assignmentada la isa siiyo linkska la isu diro in la sii fiiriyo la doodo markii laba xisadood baxaana aan isugu imaano intii la isla heli karo aan sheekaysan wixii su'aalo la qabo iyo wixii midmadooda soo baxay insha Allah. كورسكان waxaan ugu talagalnay ujeedkiisa in la isla helo 5,000 oo muwaadin oo Soomaaliyeed ajnabi kuma jiro haday ahaan lahayn reer Jigjiga, reer Gaarisa, reer Djibouti, reer Hargeysa, reer Muqdisho iyo guud ahaan Soomaalida koon ka saaran oo ujeedku yahay in la isla helo 1,000 diblomaasi, 1,000 aqoon-yahan, 1,000 macallin dadka foreign policy ga dhigay IR iyo diplomacy wixii la mid ah IPE international political economy wixii la mid ah 1,000 media gaar ahaan baraha bulshada Soomaalida waa inay aad ugu faltanto iyo 1,000 qof oo daneeyaasha maadadan si loo helo 5,000 oo muwaadin oo Soomaaliyeed oo wadaniina oo daneynaya danta iyo maslaxada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliya si markaas ay meel isula saaraan wax allaali wixii dalkan culays oo ku yimaada inay aqoon ku difaacaan ayagoo ikhlaas ka tahay Ilaahay ugu dhawaana insha Allah. xeeran dhiganayna mar haddii ballan la galo la isdiiwaan geliyo dadka isdiiwaan geliya buug free ay leeyihiin oo buugi siyaasadda arrimaha dibadda aniga soo xarxariiqay ma sha Allah xisadahana joogtay u qaadanayaan waa in wax la akhriyo xeerkooda in la akhriyo in fakarka lagu kala duwanaado la isku xurmeeyo xeerka kale aan yeelanayna waxa weeyaan in aan laga hoos dhicin qiyamka dhaqanka suubanay Soomaalida shariicada u horeyso koo tahay Soomaalinimada ay laba tahay isirka qofka Soomaaliga saddex uu yahay dhaxal reeb intaan la gaarin wakiilka aan saddexdooda ka nahay afar tahay iyo in dhaxalna loo reebo geeri ka hor aan garanayn goorta sida iyo meesha laakiin Ilaahay ku aqoonsanay intaan maadadan la baranin ma jiraan precondition wax la dhaho shuruudo ma jiraan qofka maadadan dhiganaya ay khasab tahay inuu yaqaano ama uu soo maro. shardiga koowaad waa inaad xurmo u haysid taqaanid diyaar u tahay ayna ka go'an tahay inaad ilaalinaysid difaacaysid nafta aad dhigaysid qiyamka dhaqanka suuban ee Soomaalida. shardiga labaad waa in maadooyin ku lug leh maadada aad soo fiirfiirisid taariikhda caalamka maadaama Afrikaan aan nahay geeska Afrika joogno Soomaalina taariikhda Afrika daraasaadka Afrika geeska Afrika iyo daraasaad Soomaalida taariikhdeeda meesha ka soo jeedo Soomaalida siyaasadeeda taariikhdeeda iyo bulshadeeda. maadooyin kale aad ku anfacay waxa kamid ah culumta siyaasadda waxa la yiraahdo maadada anthropology la dhaho sociology economics diplomacy iyo maadooyin badan oo ku lug leh si guud marka la dhaho ay dhamaantood marjac u noqonayso maadada la dhaho social science ka culumtan cilmi bulsheedka la yiraahdo. koorskan sababta aan u qaadanay mar hadduu cad yahay aan aada marka u buucday oo ah maxaa IR la dhahaa maxaana loo bartaa muhiim u tahay.
IR international relations marka la dhaho oo capital letter la qoro waxay noqonaysaa discipline ahaan maadada international relations laakiin marka small letters lagu qoro waa calaaqadii laftigeedii relationska u dhaxeeya laba dal iyo wixii ka badan ama aan badal ahayn dadka aan actorska aan dalalka ahayn iyo wixii lamida isla falgalkooda beesha caalamku marka la fiiriyo waxa la wixii ku saabsan bay daristaa laakiin marka IR la dhaho capital letter laga dhigo waa maadada maanta isla fiirinayno haddii ilaahay yiraahdana ubuucda u noqon doonto inta koorsadan ay noo socoto maadooyin kale ku lug leh oo in la isla fiiriyo ay tahay qaanuunka caalamiga marka la leeyahay marka falgal uu yimaado oo ka yimaada ficil dal falcelinta dal kale uu sameeyo iyo isla falgalkooda waxa khasaba in sidii la reebo marka qaarkood aysan waxba noqonaynin sidaas si lamid ah waxa loo baahan yahay marka inuu jiro qaanuun caalami ah oo haga waa ognahay meesha inay ka maqan tahay inuusan jirin booliis caalami ah marka culays dhaco la isla aado haddana qaramada midoobaan haysanaa iyo hay'ado badan oo ama duwal ku bilaabanaya heer goboleed aadaya qaarad aadaya ilaa caalamka kale marka qaarkood xataa si khaas ah baa loo xallin karaa gaar loo bixi karaa maado kale oo aan ka fogeynaa jirta oo ay khasab tahay marka qaarkoodna aan dhaho waxay yihiin mataano aan la kala goyn karin sida arrimaha caalamka iyo qaanuunka caalamiga ay yihiin oo la maadadan international political economy waa ka xuma inaanan xisad ahaan u qaadanaynin laakiin waa soo gelgelin doonaa from time to time haddii ilaah awoodda leh uu ogolaado biidni illah international political economy waxay ka hadashaa muhiimadda dhaqaalaha oo siyaasadda u leeyahay sidaas si lamidana siyaasaddu ay dhaqaalaha u leedahay oo aan midkood kan kale deganaantiisa la'aanteed uusan shaqayn karin maanta waxaan ku bilaabayaa marka waan rabaa inaan ubuc ka dhigto nerve centerkii aan ka duulayay maqaal uu qoran nin la yidhaahdo Stephen Walt 1998 oo u bixiyey International Relations One World Many Theories arrimaha caalamka uu ku tilmaamaya hal duni laakiin nadariyaad kala duwan oo badan nadariya maxaa la muraayad waa glasses qofka uu gashto kuwa akhriska loogu talagalay kuwana socodka aragtida dheer loogu talagalay kuwana isku dhaf labadooda comprehensive la dhaamanayna waa la isku daraa waxna ku akhrin kartaa aragtida fogna isugu ka dirigtaa ujeedka uu yahay marka sawir buux aad rabtid inaad meel hor istaagtid inay sawir buuxa ku siiyo ka dhexda istaagtidna half marka gees tagtid inuu goolad angle kaas iyo wixii la mid ah mar walbana waxay ku xiran tahay aragtida isticmaalaysa waxay ku xiran tahay meesha afadhidid oo macnaheedu yahay wax kasto aad rabtid inaad adduunka ka ogaatid ama aad ka sheegtid ama lagaaga sheego waxay ku salaysan tahay qof adiga kula mid ah ra'yul caamka asaga uu ka qabo oo ah nooca muraayada uu xiray 5,000 arday asxaabta aan noqonayno aniga ustaad Aways iyo ustaad Maxamed Waabe iyo team kan aan ku wada jirno waxaan rabnaa inaan hadii ilaahay uu diro ogolaanago fakarka ku kala duwan laakiin caalamka kale marka laga yimaado danta maslaxadda qarannimada Soomaaliya in hal muraayad u xiran aan wada fiirino oo Soomaalida aan laga gorgortamin hadii ilaahay uu diro ogolaado Stephen marka su'aal ku bilaabo wuxuu leeyahay dadka siyaasadaha dejiya dawladaha iyo dadka ku shaqeeyaba waxay aad u daneeyaan inay bartaan arrimaha caalamka sabab maxay u baranayaan waxa meeshaas kaaga muuqanaya inuu jiro xiriir aan kala go'i karin oo laba duni u dhaxeeya dunida koowaad maxaa waxa la dhigay abstract world of theory dunida yaabiska ee qalalan ee nadariyaadka ku base garaysan hebelaa sidaas ku dooday hebelaa sidaan yiraahda heblaa doodan ka keentay wixii iyo dunida runta ee policyga siyaasadda marka gacanta la galo application ay tagto dooda labadooda u dhaxaysa intaanan sii fogaanin IR calaaqa marka la dhaho oo relations laga hadlayo wuxuu soo bilowday tan iyo markii koonku uu soo bilowday dadka taariikhda markay ka hadlayaan historyga waxa aad loo sii daneeyaa taariikhda casriga ee la yaqaan inta qoran laakiin wixii ka horreeyay prehistory baa loo yaqaanaa min abuuna aadam calayhi salaam xataa qabla aadam boqorka unbaa garan kara subxaana kutubka qoranka sheega xadiista sheegta fuqahada ijmaacooda sheega ilaa ay qiyaas soo gaarto dadka taariikhyahanada wax qora haddii marka aad xoog saartid inaad tusaalahan quraanka baratid xadiiska baratid siirada nabiga sallallahu alayhi wasallam baratid madahib al-arba'a si gaar ah khaasatan madhab imaamna Shamaal bin Idris imam Shafi'i rahimahullah kulligood baratid sida si lamida carabiyaadka baratid laana luqaddu waa fure cilmiga oo dhan soo saaraysa 6 taariikhda islaamka baratid 7 taariikhda fakarka islaamiga baratid waxaa noqonaysaa qof culus oo fadhiya oo degan ustaad Xaashi Cabdirsaaq Maxamed Xaashi wuxuu ku doodaa in qof kasto insaan asoo markaas insaan wuxuu yaqaan qofka Soomaaliyeed
qof kastoo insaan wuxuu u baahan yahay marka koowaad inuu helo fahan mug leh in depth oo gun fog oo diintiisa ah toddobadii qodob haddaan sheegay labo takhasus maado la yaqaan marka maadada la arkan in qofka la arko marka qofka la arkan in maadada la soo xusuusto inuu yaqaan iyo saddex aqoon guud inuu qofka leeyahay oo wax kasta oo la sheegay wax ka dhihi karo laakiin uusan sheekhul kulli ahayn hal maada lagu yaqaanaa diintiisana hub iyo hub ay u tahay aqoonteedii iimaankii camalfalka uu leeyahay maadana waa lagu yaqaanaa aqoon guudna waa leeyahay uu samayn karaa aan soo noqdo marka IR calaaqada marka laga yimaado oo discipline ahaan academic discipline la barto sida maanta aan rabnaa isla fiirino kale waa post world war II phenomena dagaalkii labaad ee adduunka kadib ay culumo badan oo culumta siyaasadda baranaysay si gaar ah rabtay public administration ay ka baxdo xuduudda banaankeeda indhaha ku fiiriso waxaa la darsay in loo baahan yahay maado lagu darso arrimaha caalamka isay isula falgalaan course ahaanna sidaasay ku timid phenomena ahaanna sidaasay ku timid heerka seriousness level of seriousness oo dadka inay daneeyaanna sidaasay ku timid laanna waxaan ognahay dagaalkii koowaad oo adduunka markuu dhacay in la yidhi dagaalkan waa dagaaloo dhan soo afjiray oo la yidhi League of Nations aan samaysano waa xusuusataan Woodrow Wilson madaxweynihii Mareykanka xilligaas 14 pointskiisii oo adduunka u qoray nabad baa loo baxay hadda ka dambe maxaa dhacay waa la fashilmay 39kii dagaal dib haddana u qarxay Soomaaliya ilaa 1945 kadib qaramada midoobay la sameeyay 1945 wixii ka dambeeyay waxa la isla fiiriyay walow ayada lafteeda dood ay ka taagan qaabka UN ay u shaqeyso isla fiirin doono ilgaaran aan ku fiirin doono haddii Ilaahay uu dilo ogolaado oo shanta dal ee veto wielding powerska veto haysta marka la fiiriyo oo laftigooda reform u baahan yihiin doodeeda aan geli doono haddii Ilaahay yiraahdo haddana waxaa moodaa adduunku inuu xasilay qodobka lagu guuleysto ugu muhiimsanna inaan nuclear dambe xataa tijaabo sidii reer Japan ku dhacday Hiroshima iyo Nagasaki xilligaas dambe aan loo sameynin ninkii qarsoodi ku samaysanaya iyo ninkii loo aqoonsan yahayba in la wada ixtiraamo oo treatygaas la wada saxiixo binding dalalka dhan ku ah arrimaha caalamka markaa fiirisid doodaha ugu waaweyn oo kugu soo dhacay maskaxda ku soo dhacay waa Shiinaha sida uu quwad siyaasadeed military dhaqaale maanta u yahay iyo meesha uu socdo iyo inay imaan karto dood ah yaa maanta quwad ah yani super power yaa ama Mareykanka bakeliga ah ma Mareykanka Ruushka oo labadooda bipolar ah mise Shiino ay labadaba magan iyo marti ugu yihiin dhinaca dhaqaale iyo teknolojiyadda baa la siinaya waa dood culus oo intee taagan qaabka NATO ay isu kala bixinayso Turkida kaalinteeda muhiim ay tahay reer Yurub iyo Mareykanka iyo ma ah yaa la ilaaliyaa sharaf marka la dhaho dimuqraadiyiinta sida ayaga ay u sheegaan oo isla fiirin doona ereyga dimuqraadiga culayska ka imaanaya laftigiisa ayadana muhiimad gaar ah leedahay waliba doodihii ugu dambeeyay xiriirka labadooda transatlantic oo baddaas Atlantic oo 8 saacadood la dulduulo buu noqonayaa oo Mareykan asaas ku ilaaliya mise Jarmalka oo economic powerhouse oo Yurub oo dhan gacanta ku haysa baa markii dagaal dhaco hadiiba uu dhaco alla ka magane baa magan loogu noqon doona waa dood sida Afrika loogu mamman yahay oo loogu foogan yahay oo la rabo in gumaysi cusub oo dhaqaale la geliyo scramble hadda uga jiro arrin afraad ayadana culayskeed leh waay islaamka iyo qarniga 12aad islamophobia meesha hadda uu gaaray iyo sida dadka muslimiinta ay u dagan yihiin oo ay u jiifaan ayna culayskeeda leedahay su'aasha reer Filistiin waa arrin kale qaabka qaramada midoobay u dhisan tahay iyo reform debate-kana waa qodob kale waa aniga idin ballan qaadnay in xisadda ugu horeysa international relations aan ku weelayn doono the changing dynamics of international politics toddobadaas area aaday muhiim u yihiin toddoba qodob aan kusoo koobi doonana waan samayn doonaa insha Allah laakiin kuwaas marka ugu horeysa la fiirinayna hadday waxaan ka hadalnay theories waxa la yiraahdo theories waa lenses waa muraayado imma waxa la qaataa wax la dhaho theoretical framework for analysis oo qofku hal nadariyo intuu qaato uu rabo inuu wax ku fasiro ku taxliiliyo ku dabaqo ugana faa'iideysto imma laba theory ka badan hadii la isticmaalayo ama relevant elements la rabo in laga soo amaado conceptualization ay imaanayna in adiga model samaysatid baa imaanaysa conceptual framework for analysis la dhaha in laba nadariyo iyo wixii lamid ah ka badan inta laga soo qaato elements adiga ka anfacay sidaas loo isticmaalo laakiin marka fiirisid international relations maada ahaan waxaan isla fiirinaynaa afar theories oo aad muhiim u ah realism oo xoog saarta conflict iyo confrontation iyo sidii looga bixi lahaa liberalism oo xoog saarta conflictigana in nabad loo helo confrontation kan in cooperation iskaashi eedan loo helo aad moodina dhinaca kale ka soo jeedo
iyo qodobka saddexaad oo ah theory saddexaad oo ah nadariya saddexaad oo ah constructivism oo xooga saaraysa ideas iyo interests iyo discourse xooga saarayso aad moodo inay tahay nadariyada xadaariyiinta oo labadooda waxyaabaha fiican intay ka qaadata rabta in la wada hadlo kuwan focuskooda materialistic waa kuwana issues iyo interests iyo very dynamic xooga saaraysa level afraad jiro la dhaho radical theories oo badan laakiin laban ka soo qaadanaya radical theorieska waxaan xoog ku saaraynaa feministiska dadka u dooda xuquuqda haweenka mashruucan la dhaho women empowerment oo taxriiru nisaa oo wax walba la raba in equality laga fiiriyo the equity ma aha equity haddii la yidhahdo waxaa xoogga la saarayaa dadka sida ilaahay uu u uumay qof walba in roolkiisa sidaas ugu caddaado la isku xurmeeyo la isku sharfo laakiin way adagtahay in equality la qaato because gabar meeshii nin mara ma mari karto dhinac kale waxaan ku doodi karnaa gabar meeshii wiil mara way mari kartaa ilaa intay shareecada isku ururinayso laakiin ayaga sidaas uma ahan waa wixii wiil qaban karo waa inay gabar qabataa maxaa ugu qarsoon by any means annaga by any means ma aha gabar waxay mari kartaa meeshii wiil maro ilaa inta ay shareecadeeda macaan isku ururinayso dooda ugu weyn marka waxaan rabaa iyo midda labaad waa marxist theories oo ah dadka aaminsan barnaamijkan shuuciyadda la yidhaha Marx iyo Lenin iyo oo ayagu ku dooda adduunyada inay u qaybsan tahay dabaqada hoose dabaqada dhexe dabaqada sare waxay rabaan in loo baxo adduunyo classless ah oo wax dabaqada aysan ka jirin oo ay tahay in toos loo wada noolaa dagaalkan uu ka dhexeeya dadka wax haysta iyo dadka aan wax haysan oo ay khasab tahay kuwa wax haysta si kastoo ay ku sameynta laga soo qaado in dadka loo qaybiyo la simo oo cadaalad darro inteeda la eg laftigeeda dagaalka markaad aragtid conflictiga intaas la eg wuxuu u dhexeeyaa realistiska iyo liberalistiska oo dhinaca iyo radical theoristiska oo dhinaca kale ah halka constructivistiska oo political science nadariya ahaan maada ahaan uga soo jeeda nadariya ahaan ay dhexdhexaad u tahay inay meel isugu keento marka nadariyaadka si kooban intaas uga gudbo waxaan aadaynaa kaalinta taariikhda ay leedahay prehistory aad taariikhda casriga aad middan qarniga 11aad aan joognana aaday muhiim tahay leanna waxyaabaha oo key landmarkska adduunka ka dhacay waxaa ka mid ah dagaalkii koowaad oo adduunka wax yar ka hor aan ka hadalnay in League of Nations la sameeyay 1914 ilaa 1918 waa laga soo tallaabo 39 ilaa 45 dagaalkii labaad adduunka haddana mar kale dhacay United Nations la sameeyay xooga xasilooniya la helay nabadna waa loo baxay ilaa maantay la dugaalsanayo laakiin ay su'aalo badan ka imaanayaan dagaalkii qabowga ku xigay oo 45 markii dunida ay bari iyo galbeed kala noqotay oo ay Mareykan iyo Ruush NATO iyo Warsaw oo laba garab oo military isku bahaysteen ay adduunyada kala raacday oo dhamaaday markii midowgii Soviyeeti hore u burburay dhamaadkii 80meeda si gaar ah 1989 Clinton madaxweynihii hore Mareykanka baa wuxuu keenay hanaan cusub oo la dhaho New International World Order oo si kala marka loo dhigo Clintonism la dhaho oo ah dimuqraadiyadda guuleysatay hana la soo raaco inuu bilaabo inuu gacmaysto dunida Afrika gaar ahaan geeska ilaa bartamaha bariga Afrika wuxuu isku day inuu soo saaro a new crop ala the new breed of leaders mala Zanawgi Ethiopia iyo Paul Kagame meesha leeyahay Rwanda iyo wixii lamid dad dhalinyaro oo sidaas oo la soo saaray oo la rabo in ay dimuqraadiyiinta geeska Afrika ka sii wadaan Asia sidaas si lamid ah iskaashi dhaqaale la aadeen iyo wixii lamid ah Cold War-ka iyo Clintonism waxa u dhaxeeyay post Cold War wax la dhaho oo su'aasha ay ka taagantahay hadda xageen hadda joognaa markii wali post Cold War lagu jiro waxa kaloo ayadana labeeyay oo Reer Clinton doodoodii ayadana dib ka timid Bushkii yaraa hadda Bushka weyn laftigiisa la dhahaa Bush senior lana odaga meesha ka baxay 9/11 markay dhacday oo daarihii mataanaha ay al-Qaacida sheegteen inay ku dhufteen oo bedeshay dhamaanba isticmaalka luqadii arrimaha caalamka oo ahayd dunida inay wada tahay dalal equal sovereignty oo kulligood wada go'ba siyaasad ahaan u madax bannaan dal ahaan dal walba uu mid u yahay gobonnimadoodiina ay u madax bannaan tahay oo ay isku cod yihiin marka qaramada midoobay isugu tago laakiin maxay noqotay mid u isu bedeshay you are either with me or you are against me wax highway la dhaho my way or no way highway wax la dhaho la isugu iman karaba aysan jirin si kale marka loo dhigo hadda ma dimuqraadiyadii beenbeentayd baan joognaa mise unilateralist tendency baa yimido dal walba wuxuu doono inuu iska aado oo
definition ka saxda haduu marka soo baxay marka arrimaha caalamka la qeexo maxaa hadda soo baxaysa waxa soo baxaysa arrimaha caalamka waxa la dhahaa halgan oo dal walba ugu jiro inuu badbaado si saddex uu helo koow inuu awood helo markuu awood helana laba uu nabad helo markuu awood iyo nabad isla helana inuu hegemony helo madaxtaag uu helo heerka adduunka ka joogo dalka gobolka qaaradda iyo guud ahaanba beesha caalamka sida dalal badan hadda ay u dhaqmaan marka unilateralism fiirisidna waxyaabaha markiiba kugu soo dhacay waxa kamid ah dagaalkii koowaad oo gacanka kii labaad oo gacanka Ciraaq lagu qabsaday lagu dulmiyay kii saddexaad oo Afghanistan lagu qabsaday waxa hadda Ukraine ka socda iyo suurtagalnimada sanad iyo wixii hadda ka dambeeyay waxa Taiwan ku dhici kara haddii ayaga Shiinaha uusan Ilaahay si kala yeelin waxaan rabaa inaan haddana isla fiirino wax la yiraahdo levels of analysis in terms of taxliilin marka laga hadlaayo arrimahaas aan ka hadlayno sababta taariikhda ubuc looga dhiganayo oo nadariyaadka muraayada looga dhiganayo oo background ahaan meesha ay ka soo jeedo maadada in la isla fiiriyo ujeedku in wax la taxliiliyo oo laba arrimood la fiiriyo maxaa significance ah oo arrin dhacday ay laba dal iyo ka badan u leedahay maxay implication ku keenaysaa maxay muhiimada u leedahay arrin dhacaysa laba dal iyo wixii laba walxad laba qof laba kooxood laba hay'adood laba urur caalami sidaas si lamid maxay implication ku keeni kartaa waxa aad la isula fiiriyaa ila 6 level of analysis saddexna ku soo koobina Rosenhoy marka fiirisid meesha ugu korayso international system ka oo international system ka la dhaho waa adduunka meesha uu joogo caalamka international system ka waxa lagu xusuusan karaa marka la soo qaato qaramada midoobay oo dalalka oo dhan Djibouti oo tusaale ahaan 1 milyan iyo ka yar dadyogeeda uu yahay iyo Mareykanka 300 milyan iyo siyaada inay General Assembly markii la isugu yimaado golaha guud September sanad kasta codaynta min hal cod meesha ka ritaan oo cajiib keelay levelka labaad waa continental regional waa la dhahaa waa heer qaaradeed midowga Afrika midowga Europe iyo wixii la mid ah kan saddexaad waa sub regional oo heer goboleed waa East Africa Community IGAD iyo wixii la mid ah national levelka waa heer qaran marka Soomaaliya laga hadlayo Somali Republic levelka kale waa societal waa kan bulshada waxa lagu soo xusuustaa kaalinta bulshada ay leedahay waxa loo yaqaan bulshada rayidka ay leedahay media madaxa banaan ganacsiyada gaarka loo leeyahay oday dhaqameedada haweenka dadka peace activists interest groups policy institutes ka Muqdisho Center oo kala kamid tahay iyo wixii la mid ah iyo heerka u dambeeya oo ah the individual level by the end of the day study in the final analysis على آخر ساعة what matters is the individual decision maker أما أدون كهذا أما قارات كهذا أما قبل كهذا أما دل كهذا أما بلشدة دت كاغا دل كهذا كهذا أما individualist كأكترست كهذا على آخر ساعة وحنا أنفعه وحويان قفك decision maker كا سيدا سير لميد أبا مركا لسوق هوبا سيدا روزنا وكلا وكل ضادي صدح level على سوقاتها the individual the national iyo the systemic qofka heer qofeed heer qaran iyo heerka saddexaad oo ah systemic oo ujeedka ay tahay wax kasta oo kale oo dalka banaankiisa ka oo dhan inay meesha aadayaan sidaas si lamid ah marka lixdan waxa la isugu xiraa the national system ka iyo continental sub regional kana waxa high politics ka xoog loo saarayo siyaasadaha caalamiga marka la rabo falgalkooda la aadaa domestic politics marka laga hadlaayana nationalka societalka iyo individualka hoos loo soo aadaa sidaasan marka dood waxay ku soo gabagabowaysaa in realism iyo liberalism marka laga hadlaayo oo realistiska ay yihiin dad abbaara kaalinta dalka iyo dawladdaas ay ku leedahay waxa adduunka ka dhacaya oo in halgankaas qaybteedii laga soo qaato iyo liberalistiska oo ayaga ka soo horjeedaan ma dadkuna kaalimay leeyihiin oo non state actorska ayagana kaalimay leeyihiin labadooda marka fiiris focuskooda waa material focus waxay xoog saarayaan waa resources waa aad ma u baahan yahay laakiin dhinaca kale maxaa ka soo jeeda constructivism oo ayada aan xoog saarayn material focus xoog saaraysa the impact of ideas saameynta afkaaruhu dadka ku leeyihiin oo annaga laftigeena marka fiiris Muqdisho Center iyo teamkaba waxaan nahay on ku doodi karnaa inaan constructivists waxaan rabnaa the impact of our ideas in la helo 5,000 oo qof oo sida wanaagsan waxaan ku xunnahay qaadasho male ilaahay idinkiis ilaahayna hana wanaajiyo sanna xumeyn biidnillah nama xumeena 5,000 oo qof oo sidaas ugu fakaraysa those great ideas in la isla helo dhinaca kale dichotomy jirto waad arkaysaa between international politics oo meel ah iyo domestic politics laakiin they are interlinked way isku xiran yihiin
ma kala maarmaan gudo marka la joogo wixii ka halaysan buu dal bannaankana la aadaa waxa u fiicanna wuu ku sharfan yahay imagekiisii bannaankana way yeelaan waayadan dambe waxaa dhacay process internationalization la yidhaahdo oo caalamiyiin oo adduunka wax kasta oo ka dhaca muhiimay ku yihiin 1962 baan u maleynaa John F Kennedy intuusan madaxweynaha noqon isla sanadkaas markuu senatorka ahaa wuxuu yidhi soo wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka la hadlay waayadan dambe waxaan ogaanay in xog kastoo adduunka ka dhacda ay muhiim noo tahay annaga Mareykanka inaan ogaano hal raadiyo 62 wixii ka dambeeyay wasaaradda arrimaha dibadda xanshiir qof Soomaali iska daa qof Mareykan hadduu qoro daabaco week hadday dahda 2 week koobi inuu Library of Congress Mareykanka yaal annaga hadda wax kasta oo adduunka ka dhaca annaga maanta aan isku ogaano inay Soomaaliya muhiim u yihiin annagana aan ogaano si aan go'aamadeena ugu qaadano haddii Ilaahay uu daro oo ogolaado maxaan rabaa marka inaan key points joog garayno inta aanan doodaheena kale u gudbin haddii Ilaahay yiraahdo key points maxay yihiin adduunkii mid ka ahaa oo 1945 lagu heshiiyay in qaramada midoobay la isla samaysto nabad lagu wada noolaado waa adduun unilateral ah oo nin tooxsi iyo sadbursi iyo xantiiris ku salaysan ka xoog badni iyo halgankaas haddaan awoodo kabahan kugula soconayaa qodob aad muhiim u ah in la shinsadana ay tahay labo adduunkaas aan ka hadlayno waa hal adduun laakiin nadariyaadka lagu fiirinaya waa mini aad u badan yihiin islaam ka fiiri galbeed ka fiiri bari ka fiiri Edward Said oo kale orientalism ka fiiri annaga bari galbeed nama khusaysadhe waxa aragtid sheeg saddex san sheegay international relations iyo xataa dynamics ko international politics marka fiirsay isu bedelayaan waa halgan saddex loogu jiro dal kasta inuu awood helo inuu nabad helo inuu madax taago oo cid kasto kale ay ka dambayso hadba heerka uu joogo heer gobol heer qaaradeed iyo heer caalamiba domestic politics marka la fiiriyo gudaha dal siyaasadiisa aad ay muhiim u tahay inay degan tahay inay aad u degan tahay xasiloon tahay dhaqaalihiisa siyaasadiisa amnigiisa dhaqan dhaqaalihiisa wixii la mid ah aad ay muhiim u tahay waxay jaangoysaa inuu si xalaal ah qurux badan oo constructive ah uu la falgalo dunida inteeda kale componentiga ugu muhiimsan oo la isticmaalo waa dhaqan diintaada qiyamka dhaqankaaga suuban inaad hub iyo hub ka dhigatid qodobka shanaad waayadan dambe waxaa soo kordha waxa la yidhaahdo look east policy dadku hadday galbeed fiirin jireen barina inay fiiriyaan laanna bari qoraxda ka soo baxda oo nolosha runta oo la sheegayaba ah calaamaadka ilaahay calaamadaha ugu waaweyn maanta koonka saaran aragnaa reer galbeed kaliya la fiirinna reer bari maxaan la qabsan karnaana ha la fiiriyo shiina ha la aado iyo cidii kale lala dhaqmi karo Bush senior hadda jooga hadda ka hor wuxuu ku dooday waxaan u baahanahay annaga reer Mareykan inaan afka shiinaha iyo afka carabiga barano weer afka shiinahana ganacsigii iyo teknolojiyadii tartankii baa galay afka carabigana amnigeena galay wiil annaga afka carabiga waa luqadeeni hooyo ee labaad bal waxaan ku jiraa dadka aad u yaray ku doodo yiraahdo afka Soomaaliga waa lahja min khasab qofka muslimka waa inuu carabiga barto waayadan dambe annaga Turkiya noo soo galaysa shiinana waa inaan baranaa af Turkiyana waa inaan barano 10 sano soo socdaan difaac iskaashi difaac 10 sano qaadanay oo xataa maraakiibtoodii wax baaraysay iyo ku iimaanay saraakiishii raba in la saaro Soomaalida kormeeraysa leer may annaga isku filan lama saaray afka Turkida in la barto muhiim waa maanta walaalo waa bari walaal may ahaan doonaan isbedeli karaan ayaga badantooda ceyrsanaan annaga inteena ina ilaalina conceptiga qodobka lixaad concept waxa jira la yiraahdo makumism oo aniga aan isku day inaan iqtiraaco aan wali u gadmin oo ah in dibadda gudaha laga fiiriyo gudaha waxa ku haysatid waa ogtahay baahidaadana waa ogtahay waxa dibadda uga baahan tahay inaysan noqonin waxa dadka ay ku siin karaan ay noqoto wax adiga aad rabtid hadda cagafyar rabtid laakiin dadku ay rabaan inay ku siiyaan abuur iyo yaambo taqashin qob ma ahi cagaf rabaa maalinkii la awooda la siinaya ma gadanaya waa lagu kala tagay qodobka toddobaad aan rabaa inaan xisadeena maanta kusoo gabagabeeyo xawayaan politics iyo by extension international relations marka la fiiriyo siyaasadda caalamiga iyo xiriirka caalamka ah waa dynamic so are we annagana waa inaan dynamic noqonaa oo la noqonaa lianna albirqsi kasta daqiiqad kasta saacad kasta gelin kasta maalin kasta usbuuc kasta bil kasta xilli kasta sanad kasta iyo waa iyo zaman kasta oo ay ku dhaaftaba intaas in la mid ah
bay ayadana labay satay ku dhaafaysaa. waa muhiim in ilbiriqsi loola socdo adduunka aan ka tirsan, laana Soomaaliya iyo Jamhuuriyadda Soomaaliya dadkeeda ma ahan jasiirad keligood nool. adduun baan ka tirsannahay, waana inaan qayb ka ahaanaa. aada umahadsantihiin. waxaan iskula fiirin doonaa haddii ilaah wadil uu yidhaahdo maqaalaan soo diraynaa. maqaalkana waa akhrinaysaan. link oo bbc.com/news baan soo diraynaa, waa la gelayaa. arrimaha caalamka fiirinaysaa, Yurub gaara u fiirinaysaa, doorashooyinka Mareykanka hadda soo indhaha lagu haynayaa, bariga dhexe waa la fiirinaya, si gaara Afrika u fiirinaysaa. qodobadii ugu muhiimsanaya adduunka 24 saac la soo dhaafay maalin walba arkaysa oo fiirinaysaa. doodaheena iyo taxliilkeena sabuuradan isugu imaanaynaa. laba xisadan xisada ku xigta markay baxdo wixii ka dambeeyana waa isu imaan, wixii su'aalaha qabtaan iyo wixii madmadoo waa isla xalinayaan insha Allah. mar kale waxaan idinku boorinayaa dadka Telegram ku jira oo dhan inay isdiiwaan geliyaan, si haddii ilaah wadila ogolaadaan isula helno xuduud cusub oo madal saddexaada oo aan mucaaradna ahayn, muxaafadna ahayn, oo jamhuuri ah, oo dalka iyo dadka iyo diinta u istaagta باذن الله. هذا وما نسنتين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.